guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo dhawaan lagu waday lagu qabto magaalada caasimadda oo ah Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa maanta ku doortay magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaana doorashada guddigu ay maanta sameeyeen bogaadiyay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxaana goobtaasi isku mid uga hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad waxayna guud ahaantood sheegeen in aad ugu garab taagan yihiin howlaha guddigu ay ugu doorteen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyagoona sheegay in loo baahan yahay hore loo dhaqaaqo si loo helo maamul mid oo Galmudug ay leedahay baarlamaanku ansixiyay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo maanta halkan fadhiyo doortana guddoonkoodii gudoomiyihii iyo ku-xigeenkii waxaa laydin ka codsanayaa waajibaadka horta laydin egmaday oo dastuuriga inaad gudataan sida gudoomiyuhu u sheegana jadwalka aad ku soo saartaan shaqadana laydinla fududeeyo wixii farsamo ah ama amni ah ama gaadiid ah ama wax kastoo aad u baahataan sababta keenaysa waqtiga la joogo iyo waqtiga naga soo dhumay iyo maxaan ku yiraahdaa baahida loo qabo in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa aad muhiim u ah sidaa darteed waxaa laydinka codsanayaa inaad waqti badanna gelisaan dadaal badan samaysaan sida ugu firfircoon oo ugu farsamada badanna shaqadaas aad u soo qabataan waa mahadsantihiin sidaad ogtiin anagu waxaan nahay korjoogayaal guddigana ayaga looga fadhiyaa hawshan inay si sax oo saamiyo u fuliyaan si gacantaaga ayaana loo doortay guddoonkaas waxaan rajaynayaa inay noqoto mid miro dhalisa annaguna waxaan qiyaasaynaa inaan ugu baaqi doono cid walba oo danaynaysa inay madaxda ka mid noqoto oo madaxweynayaasha aynaan fursad siin doono ay ku yimaadaan idinkana waxaa idinka rabaa si degdeg oo qurux badan oo nadiifa inaad u soo saartaan jadwal la yaqaan sidaas ayaanan korjooga idinkugu noqon doonaa waxaan idin farayaa inaad kala dambaysaan nidaamka dhowrtaan dadkana tixgelisaan guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kulankoodii ugu horeeyay maanta ay ku dooranayaan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen kadibna ay ku bilaabayaan hawshii ajandahaynu maantay waa doorashada guddoonka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug waxaa soo xaadira saakay kooramkii guddiga oo u dhan kadib waxaan ansixinaynaa ajandaha guddoonkayna waxaan korjoogtaynaynaa habka hawsha iyo doorashadu ay u dhacayaan maantay waxaan cod u qaadaynaa ajandaha inaan ansixino gacantaa loo taaga adinkoo mahadsan waa mahadsantihiin dejiya guddoonka baarlamaanka ayaa dhawaan lagu doortay magaalada Dhuusamareeb iyagoona soo xulay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyaduna maanta ay xubnahani ay doorteen mas'uuliyiintii hogaamin lahayd Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb